kooxda Taliban ee maamusha dalka Afghanistan ayaa ka dalbatay Ruushka saliidiisa oo ay uga bedelanayso macdanteeda oo lagu daray waxyaabaha ka soo baxa Afghanistan sida sabiibta iyo geedaha dawadhireedka oo Ruushku isaguna xilligan aad ugu baahan yahay sida ay sheegtay dawladda Afghanistan. wasiirka warshadaha iyo ganacsiga Afghanistan Nuruddin Aziz oo arrintan si faahfaahsan uga hadlay waxa uu yiri sidan: waxaan ku siin karaa qaar ka mid ah macdanteena oo aan kaaga bedelanayno badeecooyinkaaga laga keeno Ruushka oo ay ku jiraan alaabooyinka iyo ilaha tamarta. intaa waxaa dheer waxaan haysanaa tusaale ahaan miraha la qalajiyey, sabiib iyo geeda dawa. taariikhda marka dib loo raaco Afghanistan waxay Ruushka horay u siisay tiro badan oo sabiiba. waxaan keeni karaa 100 tan oo badeeca oo waliba joogto ah. qiimaha geedaha dawadhireedka ayaa hadda aad u sareeya caalamka oo dhan. Ruushkuna wuxuu u baahan yahay alaabta ceeriin ee laga sameeyo daawada. waxaanu tan u adeegsan karaa bilowga ganacsiga wax kala iibsiga Afghanistan iyo Ruushka. waxaan warshadaha Ruushka siin karaa alaabta ceeriin sida aan horeyba u siinay Shiinaha si aan u bilowno xiriir wax isweydaarsi oo ku salaysan baahida labadeena dhinac Afghanistan iyo Ruushka. dawladda Afghanistan waxay jeclaan lahayd inay tixgeliso ikhtiyaarka ganacsiga iyo wax kala iibsiga. wasiirka warshadaha iyo ganacsiga Afghanistan ayaa intaas ku daray in dawladda Afghanistan ay doonayso inay iibsato 1 milyan oo foosto oo saliida oo aatan Ruushku uu soo saaro. soo jeedinta Afghanistan ee ah inay macdanteeda ku bedelato saliid waxay dhaqaalayahanada dunidu u badinayaan inay sabab u tahay lacagta adag ee dalka Afghanistan oo aad u yaraatay kadib markii kooxda Taliban ay la wareegeen xukunka Afghanistan bishii August sanadkii 2021. wixii intaas ka dambeeyay Mareykanka ayaa xanibay 7 bilyan oo kaydka lacagta qalaad oo uu leeyahay bangiga dhexe Afghanistan. lacagtaas oo lagu keydiyay bangiga kaydka federaalka ee New York. sidoo kale lacag ka badan 2 bilyan oo dollar oo kale ayaa Taliban laga xayiray, waxaana lacagtan kala xayiray dalalka UK, Jarmalka, Imaaraadka iyo dalal kale oo aan la magacaabin. wakiilka Afghanistan u jooga Ruushka Jamal Nasir ayaa isna sheegay qorshaha ay Ruushka kala xaajoonayaan uu yahay inay helaan sahay shidaal oo ay Ruushka kaga bedeshaan khayraadka dalkooda sida macdanta Afghanistan.